الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنني معكما أسمع وأرى. نبي الله موسى مركو قال له اللي هارون إن هذه الله يعبد سيدي أديكو أركي أوكله فوحى لي هذا عبادة رغبة وطمع وعباده قفك الربيتان بدن يرتشب بدن يطمع بدن إلهي أكتي سوحي له ومعان سنة صلاة عبادتي يوحدوا معان سنة طلبنا وحى لي هذا عبادة خوف ورهب وعباده عبسية بقشو هم إلهي يعبد ياي تدي لكن إلهي يسوي أركي أوكله معبده هم هو عبد يا ده عبودي ويدوك عذاب يا الله سبحانه وتعالى وكان ردن أنت مركز إلهي عابديسد عبسنا كو عابديسد معان سنيسد عبادتي شعلي سنيسو كريميسنا دهور تاغن تسقي برييسو وسجوديسو wax weydiisanayso iyo marka baqdin kaliya arintu tahay way kala macaan badan tahay iyo bani aadamka muhiimada weyn ee ilaahay uu abuuray ee adduunyada u keenay ilaahay uu ka doonayo waa cibaado wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إلهي وعدينا يا وقيح يا إنسان كان إنه عبادك الربو سيدا أوجد الدنيا مرتبة إنه كنا هاي وقري إلهي لي هاي إنسان كل بقري بصومر يا وقري جندونك أو إلهي أولي هاي يقري آخره وكبلا ما يقبرك إلى يوحي كسي دبي marka gurigan adduunka aad joogtid waa gurigii cibaadada iyo adoonnimada adoon baa tahay ilaahay baa ku keenay nasiib hadduu kuu siiyey muslim inaad noqoto dadka ilaahay markuu abuuray qaarna gaalu ka dhigay qaarna muslimiin buu ka dhigay alle subxaanahu wa tacaala isagaa ugu talagalay haddii adiga muslim uu kaa dhigay subxaanahu wa tacaala oo iimaan uu ku siiyey waxaa la rabaa iimaankii iyo islaamnimadii uu ku siiyey inaad ku dadaashid oo ilaahay si fiican u caabudid oo cibaadadiisa ilaahay ku dadaashid sida adigoo arkaya oo kale waxaa la yidhahdaa diinta islaamku waxay leedahay 12 rukni arkaanu lislaam arkaanu liimaan arkaanu diin arkaanu islaam waa garanaysaan oo waa 5 tiire islaamka arkaanu iimaanna waa garanaysaan oo waa 6 iimaanka ah labadaa marka la isu geeyo waa imisa waa 11 waxaad ku dartaa ixsaanka oo isna rukni ah waa 12 ka waxaa la isku yiraahdaa arkaanu diin diinta islaamku 12 rukni oo la isu geeyay bay ka koobantaa sida awgeed ilaahay inaad caabudid sida adigoo arkaya oo kale waa nooc ixsaanka ka mid ah rasuulka markii uu jibriil weydiiyey ixsaanku waa maxay muxuu ugu jawaabay an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak marka ixsaanku waa ilaahay oo aad caabudo sida adigoo arkaya oo kale waxayna culimadu ixsaanku wuxuu u qaybsamaa 3 qaybood alixsaan fi cibaadati illaah ilaahay cibaadadiisa inaad ku ixsaan samayso oo sidii nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ilaahay inaad u caabudo sidii adigoo arkaya oo kale oo indhaha ku haya haddaadan adigu arkaynin isagaa ku arkaya qaybta labaadna waxa weeye alixsaanu ila almakhluuq khalqiga ilaahay oo loo ixsaan sameeyo oo waalidku u horeeyo iyo xaaska iyo awlaada iyo qaraabada iyo muslimiinta in loo ixsaan sameeyo ka saddexaadna waa alixsaan ila alxayawaan xayawaanka loo ixsaan sameeyo waad maqasheen oo xadiidta waa ku aragteen in qof dumar oo aan wanaagsanayn oo ummadihii hore bani israa'iil ka mid ah ay intay waraabisay ilaahay uu dembigeeda dhaafo janno siiyey sidaas si la mida nin intuu ay waraabiyey aad u haraadan ilaahay uu dembigiisa dhaafay uu janno siiyey ixsaanku marka qaybahaasuu noqonaya qofka mu'minka ah ee iimaankiisu dhab yahay waxaa lagama maarmaana oo xaqiiq ah in ay cibaadadiisuna wanaagsan tahay rabbigii uu caabudayo rabbigii wuxuu caabudayaa
كأنه يراه خائفا راجيا مقبلا خاضعا isagoo ilaahay wuxuu caabudayaa subxaanahu wa tacaala sidii u arkayoo kale oo ka cabsanaya oo rajaynaya uu ka cabsanaya wuxuu isleeyahay haddaad cibaadadiisa ka fogaato oo aad xumayso armuu ku cadaabaa wuu caabudayaayo wuu rajaynayaa wuxuu isleeyahay cibaadadiisa ilaahay caabudayso jannaha kugu siiyo kugu naxariisto kugu dembi dhaafo rabbigii buu u soo jeedaayo waa qaabilsan yahay wixii uu ka raba ee waajibaadu la imanayaa inuu addoon yahay berri dhimanayo ilaahay la horgeynayo xisaabi ka horayso ayuu og yahay ilaahay buu isu dullaynayaa subxaanahu wa tacaala qofka xaalkiisu caynkaa yahay waxaa la garanayaa oo si qoto dheer loo fahmi karaa qofkaasi cibaadadu ilaahay caabudayo inay ka tahay cibaado dhab oo xaqiiqo ah culimmadu waxay leeyihiin marka la eegayo cibaadada ilaahay keligii la caabudo ilaahay sidii adoo arkaya u caabuda waxay leeyihiin waxaa looga jeedaa itqaanu alcamal alladii yaquumu bihi almuslim qofku inuu sugo camalka cibaadada ah ee uu u qumayo ee uu samaynaya inuu sugo hadday salaad tahay haddii camalkaasi uu salaad yahay hadduu soon yahay hadduu sadaqad yahay hadduu wardi yahay hadduu duca yahay hadduu qur'aan akhris yahay waxay ku tahayba noocay tahayba inuu qofku sugo camalka uu samaynayo waxa la wixii awood iyo dadaal iyo caafimaad iyo karti ilaahay uu geliyeyna u adeegsado niyad wanaagsanna uu ku xambaaro oo ku riixo si maxaan ku idhaahdaa uu markaa si wanaagsan ilaahay cibaadadiisii qaabkii loogu baahnaa u fiican u guto ilaahay oo la caabudo sidii adigoo arkaya oo kale martabadda ixsaanka la dhaho diinta islaamku xaggay ka joogtaa waxay leeyihin culimmadu waxaa arrintaasi ay ka joogtaa diinta islaamku waa martaba caaliya martabadaha ugu sarreeya wey oo islaamka iyo iimaankaba ixsaanka ka sii sarreeya ilaahay la caabudo subxaanahu wa tacaala nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha ilaahay uu siiyey ee ambiyada kale uu kaga duwanaa waxaa ka mida ilaahay inuu siiyey wax la yidhaahdo jawaamiculkelim jawaamiculkelim waxa weeye erayo kooban oo murti iyo micno ballaaran xambaarsan ilaahay rasuulka inuu siiyey erayo kooban buu wuxuu ku sheegayaa wax hadal badan in lagu cabiro u baahnaabuu erey kooban ku sheegaya nebigu sal alla alay wasalam ereyada ilaahay siiyey ee jaamicada ah waxaa ka mida xadiidkan ixsaanka an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak oo muslim iyo ibnu maajahba ay soo saareen marka waxaa la yidhaahdaa darajadaas cibaadadu waa laba darajo oo kala sarreeya darajada koowaad iyo darajo labaad درجة كواد وحال إرادة درجة المشاهدة درجة اللبادن وحال إرادة درجة الإخلاص درجة المخلص ودرجة المشاهدة وحوية إن إلهي عابدت سيدا أديكو أركيو إندها كوهيو أو هرتادا أو هرتي سأتاقنت الله سبحانه وتعالى وأذكت دي إنا ضح عنصة ما يسمركا إمن كاديكا هدي شقا قبل لقو يراهدو وعدي شقada kuu dirsatay qofku ilaalinaya ku kor joogo miyaad shaqadii xumaynaysaa ama ka maqnaan kartaa walillaahi almathalu la'ala inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala u caabudid sida adigoo hortaagan oo uu ku arkayo aadna arkayso taa waxaa la yidhaahdaa darajatu almushaahada waa darajadii aragtida ahayd aad ilaahay ku caabuday haddaad darajadaa weydo oo iimaankaagu aanu gaadhsiisnayn ilaa xadkaa inaad dareento markaad ilaahay caabudayso درجة كحكتات كسر داعي سامركا أو محيا درجة المخلص قف داعد عبادتي قف داعد وإلهي سبحانه وتعالى أمركا أن أركينين وداعد يدر إلهي عبادي سنة وعدنا استسين وعد اسم قشينين وعد أن أمان كربين وسوى عن طهارية عبادتي سودي القروبي ربي يسوي عبده سبحانه وتعالى درجة سوى درجة اللبات يقفكو والله إيمانية تاسي وحي كينيسا هذه قرالة إنك كد داشد عبادة سفي عن ويسيستد مركا ويسيسانيسو مركا صلاة تتواجه صلاة قور هور كيف فكرتد أدين كهور ويسقادتد مساجد كجشيد داشد مركا صلاة تكونيسد سفي عن وجشيد قف باركس صلاة تكوني مساجدك وصلاة دي وحرنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إيش هذا صلاة بكتير حاجة أي حاجة صداونا هذا كمر مرة يوك بكتير صلاة نوا كتير مركا قف كاسي
ويسئلوسن yahay inuu ilaahay hortaagan yahay subxaanahu wa tacaala sidaa awgeed waxaa la rabaa qofku marka uu cibaadaysanayo ilaahay sidii isagoo arkaya inuu caabudo alle subxaanahu wa tacaala sidii isagoo alle arkaya oo kale subxaanahu wa tacaala inuu caabudo alladii yaraaka xiina taquum wa taqallubaka fi saajidiin inanii macakumaa asmacu wa ara nabiyullaahi muusa markuu alle la hadlayay haaruun ruknigaas cadiimka ah ee rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam waa inuu qofku isku dayaa inuu taxqiijiyo labadaa darajo mid uun inaad la timaadid inaad taxqiijisid waa laga maarmaan sidaa awgeed darajada koowaad markaad hesho oo ah inaad ilaahay u caabuddo sidii adigoo arkaya oo kale taa waxaa la yidhaahdaa cibaadatu ragbatin wa tamac waa cibaado qofka rabitaan badan iyo rajo badan iyo tamac badan ilaahay agtiisa waxa yaala uu macaansanayo salaadii iyo cibaadadii iyo wixii dhan macaansanayo ta labaadna waxaa la yidhaahdaa cibaadatu khawfin wa rahbin waa cibaado cabsi iyo baqasho unbuu ilaahay u caabudayaaye sidii laakiin ilaahay isagoo arkaya oo kale uma caabudayo laakiin wuxuu u caabudayaa haddaad caabudi weydo wuu ku cadaabaya alle subxaana wa tacaala way kala dhadhan duwan tahay markaad ilaahay caabudayso cabsina ku caabudaysid macaansanaysid cibaadadii jeclaysanayso dareemaysa inaad hor taagan tahay isagii baryayso u sujuudayso wax weydiisanayso iyo marka baqdin keliya arrintu tahay way kala macaan badan tahay labadaa darajo way kala macaan badan tahay sidaa awgeed xadiidka riwaayaadkiisa waxaa ka mid a riwaayatu muslim an takhsha allaha kaannaka taraah ilaah inaad ka cabsato sidii adigoo arkaya oo kale fain lam takun taraahu fainahu yaraak haddaadan ahayn alle mid arkaya isagaa ku arkaya imaamu axmed kitaabkiisa musnadka ah riwaayad ka mid a xadiidka ku yimid alixsaanu an tacbuda lilaahi kaannaka taraah ixsaanku waa inaad ilaahay u caabuddo sidii adigoo arkaya oo kale fain lam takun tarah fainahu yaraak haddaadan adigoo ahayn mid arkaya isagaa ku arkaya alle subxaanahu wa tacaala qofku markuu u dareemaa la rabaayo xadkaa cibaadadiisu inay gaadho waxaa imanaysa inuu cibaadadiisii lex jeclaado oo aad u ilaashado oo aanay dhicin iyadoo cibaado wakhtigeed la joogo inuu wax kale ku mashquulsan yahay ama kubad uu daawanayo ama filin uu fiirsanayo ama uu sheekaynayo ama uu iska ciyaarayo iyadoo xilli cibaado markaa uu soo galay waajiba uu taagan yahay kaasi waxay ku tusaysaa ilaahay cibaadadiisa inuu qalbigiisa aanay ku weynayn laakiin hadduu welwelayo oo baqanayo markaasay waxay keenaysaa inuu qofku cibaadadiisa ilaaliyo wax kasta uu hayo wuu dhigayaa mar haddii cibaadadu soo gasho waxay leedahay caaisha rasuulku waa nala joogi jiray guriga salawaatu ullahi wasalaamu calayh siduu noola joogo oo guriga wixii shaqo ee yaalla wax noola qabanayo salaadda markii la addimo kaannahu laa yacrifuna inaannu naba aqoonin baadba moodaaba baabka yagii dhan waa xiri jiray waa weysaysanaya khalaas masaajidku aadaya qofkii nala joogay ee na yaqaanay ee wax nala qabanayay ee odaygii reerka ahaa ee rasuulkii ilaahay ahaa mama moodaysidoo waxaanu dhan faruhu ka qaadaya waayo cibaadadaasaa qalbigiisa ku weyn ilaahay subxaanahu wa tacaala uu caabudayo la imanayo imaam ibnu lqayim raximahullah wuxuu odhan jiray miftaax xusuulu alraxma waalixsaan furayaasha raxmadda ilaahay iyo ixsaanka lagu helo fii cibaadati alkhaaliq allaha khaaliqa cibaadadiisa la caabudayo subxaanahu wa tacaala waa ixsaanka ilahay cibaadadiisa loo daacadnimo sameeyo addoomaha ilaahayna wax la taro alimaamu nawowi raximahullah xadiidka markuu sharxayo hadal cajab leh buu ku sharxay wuxuu yidhi wahada alqadaru min alxadiidi aslun cadiimun min usuuli iddiin وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين وهو عمدة الصديقين وبغية السالكين وكنز العارفين ودأب الصالحين وهو من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر الكلام وحليم الإمام النووي رحمه الله حديثك قدر كان أوشيغي ورقفيه إلهي يعابد سيدي أديك أو أركي أو كالي وصار رسولك كليه وأسل وين أو كمدا أصوشا أسل كوا دينة إسلامك وقاعدة وين أو قواعد المسلمين أي كل جنتي كمدا ووحدتك أي عبادات هنت كتهي إيمانك هنت كيهي وتيرك أقعلس عبادات أي عسكنا يانو هايستان ضدك إلهي تشتكي سقاضي
ee siraadul mustaqiimka hayee ku socda waa shayga ay ku dheggan yihiin ilaahay dadka yaqaana waa kaydka ay haystaan dadka ilaahay yaqaanka ahi waa cibaadada ilaahay ay u caabudayaan sida iyagoo arkayoo kale waana dhaqankii dadkii saalixiinta ah lagu yaqaanay wuxuuna xadiidkani ka mid yahay buu leeyahay alimaamu nawowi erayada rasuulka ilaahay uu siiyey ee wax badanoo khayra kulmiyey ee ururiyey ayuu ka mid yahay markaasuu leeyahay haddaynu kaba soo qaadna buu yidhi walow qadarnaa ana axadana qaama fii cibaadatin wahuwa yucaayinu rabbahu subxaanahu wa tacaala haddaynu kaba soo qaadno qof rabbigii inuu cibaado isu taagay indhaha isagoo ilaahay ku haya subxaanahu wa tacaala rabbigii indhaha uu ka hayo caabudayo qofkaasi xaalkiisu muxuu noqonayaa baad isleeda cibaado khushuuc leh oo khuduuc leh oo maxaanku raha si wanaagsan loo hagaajiyey daahirkiisa iyo baatinkiisu isku dubariday si fiican buu ilaahay u caabudaya subxaanahu wa tacaala qaabkii ugu fiicnaa buuna la imanaya buu nebigu sheekhu leeyahy raximahu llahu raxmatan waasica darajadaa qofku inuu gaaro ilaahay weydiistaa la rabaa ilahay magacyadiisa waxaa ka mid ah min asmaa'ihi alxusna almuxsin baa ka mid ah almuxsin inaad ilaahay barid allahuma anta almuxsinu as'aluka fii xusni cibaadatika ilahay muxsin baa la magaciisa ilaw adaa muxsin ah inaan cibaadadaada wanaajiyo sidii rasuulku u sheegay kaannaka taraah inaan kuu caabudo oo kale sida anoo ku arkayo oo kale kaannii araak inaan sida anoo ku arkayo kuu caabudo ilaw adaa muxsina darajadaa i gaarsii inuu qofku yidhaahdo ku ducaysto aad bay muhiim u tahay nebigu sal alla alay slam salaadda markuu ka baxo wuxuu odhan jiray allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika maxaa ka dambeeya fiiri wa xusni cibaadatika ma ujeedda ilaa waxaad iigu kaalmaysaa xuskaaga aan ku xusayo had iyo gooraan iigu kaalmee oo ha iga dhigin addoon ku ilowsan inuu ku xuso wa xusni acinnii calaa dikrika wa shukrika iyo mahadnaqaaga wa xusni cibaadatika iyo cibaadadaada wanaajinteeda cibaadada wanaajinteeda marka waa maxay inaad ilaahay u caabudo sidii adigoo arkayoo kale alle subxaanahu wa tacaala haddaadan darajadaa gaarsiisnayn ta ka hoosaysa markaa yay ku seegin ee la kaali wuxuu leeyahay alimaam qaadi ciyaad raximahullah oo ragga muslimka sharxiye ka mid ah xadiidkan ixsaanka intaa keliya an tacbud allaha kaannaka taraah kitaab dhan buuba ka alifay isagu sheekhu raximah llahu tacaala almaqaasidu alxisaan fima yalzamu linsaan buu kitaabka u bixiyey almaqaasidu alxisaan fima yalzamu linsaan markaasuu wax badan ku ururiyey oo xadiidkaas cilaaqo weyn la leh ayuu sheekhu ku ururiyey wuxuu leeyahay wahada alxadiidu qad ishtamala calaa sharxi jamiici wadaa'ifi alcibaadaat xadiidkani wuxuu kulansado ururiyey inuu caddeeyo sharxoo qeexo dhammaan howlaha cibaadaadkee la qabanayo mid muuqata iyo mid qarsoonba min cuquudi aliimaani wa acmaali aljawaarix waxyaabaha caqaa'idda iimaanka ah iyo acmaasha laga qabanayo xubnaha wa ikhlaasi asaraa'ir iyo waxyaabaha sirta ah si daacadnimo ilaahay loogu guto oo loo saafi yeelo subxaanahu wa tacaala wataxafud min aafaati alacmaal iyo iska ilaalin la iska ilaaliyo waxyaabaha camalku u dhinto ee aafooyinka ah oo istustuska iyo ismaqashiiska iyo ha lagu arka iyo ha lagu ammaano iyo waxyaabaha camalku u dhimanayo qofku samaynayo xadiidkan baa kaa ilaalinaya xataa ina culuuma ashariicati kullaha raajicatun ilayhi xataa culumta shareecado dhan markaad fiiriso waxaad mooddaa xadiidkan inay ku ururayso oo odhanaya ilaahay u caabud sida adoo arkaya oo kale haddaadan arkayn alle isagaa ku arkaya markaad tukanayso sidaasoo kale ilaahay u caabud sadaqad ma la baxaysaa sidii isagoo ku arkaya adoo wax sadaqaysanaya noqo qalbigaaga qur-aan ma akhrinaysaa sidii isagoo ku arkaya adoo qur-aan akhrinaya noqo salaatuleyl ma tukanaysaa sidii isagoo ku arkaya adna aad arkaysid qof salaatuleylkii tukanaya noqo camal kastoo aad samaynayso waa cibaada ilaahay ka mid a nasiib camalkaaga shaydaanku kuma yeelanayo naftaadu nasiib camalka kuma yeelanayso waxay leeyihin bacdu salaf waxay odhan jireen man camila lilaahi cala almushaahada qofka ilaahay camalka uu samaynayo ilaahay dartii u sameeya sidii ilaahay isagoo arkaya oo kale fa huwa caarifun qofkaasi waa qof ilaahay yaqaana allihii abuurtay waxa uu ka mudan yahay waa qof garanaya waman camila calaa mushaahadati illaahi iyaahu fahuwa mukhlis laakiin qofkii isagu ilaahay baa ku arkaya u caabuda laakiin darajadaas sidii inuu isagu alla arkaya aan u caabudin qofkaasi waa mukhlis oo cibaadadiisa ikhlaas badan buu sameeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkan
qaybtan uu tilmaamo allow caabud sidii adigoo arkaya oo kale waxay leeyihiin cibaado culimmadu saddex qodob oo waaweyn ayaa intaa rasuulku sheegay ku dhex jirta qodobka koowaad alxuduuru alqalbi qofku hadduu saa ilaahay u caabudo isagoo arkayoo kale qalbigiisu waa joogaa qalbigiisu waa xaadir waa joogaa meelo kale kuma mashquulsana ishortaagga ilaahay uu hortaagan yahay wuxuu dareemayaa alla inuu arkayo oo maqlayo oo u jeedo oo la jiro oo isagu u caabudayo hortaagayo dareemaya darajada labaad ee meesha ku jirta waxa weeye arrinta labaad ee asaasiga ahi ikhlaasul camali lillahi tacaala camalka uu samaynayana dar ilaahay buu u samaynaya qodobka saddexaadna waxa weeye itqaanu lcibaada cibaadadii wuu sugayaa halkaas saddex qodob baa ka soo baxay markaad ilaahay u caabudayso sidii adigoo arkayo oo kale kow qalbigaagii waa joogaa labo camalkii dar ilaahay daacadnimaad u samaynaysaa saddex cibaadadii aad samaynaysana si fiican baad u sugaysaa oo cibaado khalkhal ku jiro ma caabudaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii kale waa meeshuu rasuulku ka leeyahay sala allahu calayh waali wasalam qofkii 2 rakacadood tukada intuu soo weysaysto masaajidka soo galo ama salaad isu taaga 2 rakacadood tukada min ghayri alfariida oo aan farad ahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigiisa hore oo dhan waa u dhaafaa nebigu sal alla alay wasalam walam yuxadid fiihimaa shayun intaa uu ku dhex jirana aan qalbigiisa waxba kale ugu sheekayn adduunye ah ilaahay isagoo hortaagan sidii rabbigii inuu arkayo oo kale u caabuda ilaahay dembigiisa waa dhaafaya waxay yidhaahdeen mid ganacsada ah ayaa waxay yidhaahdeen wuxuu yidhi salaaddii markii laga baxay buu yaabay isagu dadka markuu salaada soo galo buu dukaankiisu ku foofi jiray baqaarkiisa salaadiiba ma xidhay baqaarkii buu u kacaya xaggaasu aadaya markii salaaddii laga baxay wuxuu warniyo salaada dadkiioo buuqayo arkoon maxaa dhacayo markaasaa waxaa leeyahay imaamkii baa salaada wax ka tegay maanta qalbe war waa gartay buu yidhi waayo marka salaada la gala buu yidhi ayaan bakhaarkayga hargaha ka soo rari jiray gaaraan saari jiray intaa salaadan ku jiraa buu ilaa iyo dekedaan geyn jiray waa ka rogi jiray lacagtaan soo qaadan jiray anoo aan roginoo lacagta soo qaadan baa salaaddii laga baxay buu yidhi in wax dhiman yihin marka halkaasaan ka gartay buu yidhi in wax ka dhiman yihin baasha halkaasaan ka gartay waa foofayaa buu leeyahay maaragtay waxaan dee u kacayaa meel kale shaydaankuna waa imtixaan oo markaad cibaadadii gasho wuxuu samaynayaa wixii kuugu dhowaa ayuu ku xusuusinaya waa meeshay culimmadu ka leeyihiin haddaad rabtid salaadaada in markaad ku jirto shaydaanku ku waswaasin goor hore masaajidka soo gal goor hore salaada faralka ah goor hore soo gal adoo weyse qaba tukaday 2 rakaco sunno ah quraan akhristay wardiyey xoogaa si fiican isu qooyey markaa salaada markaad u kacdid dee nin si fiican isugu duba dhacsan baa tahayoo aad kuma qashqashaadi karo laakiin adoo ordaya dukaankii hadda soo xiray ama gaarigii ka soo degay ama maqaayad ka soo kacay ama kubad daawanaya soo gale saa markaa salaada u xiratuu wuxuu ka hor keenayaa manchester iyo wuxuu ka hor keenayaa wixii kale ilaa hadda daawanaysi soo ma xagee maraysu kule horta marka kee kubadda wata 7ka mase 8ka salaaddii baad ku jirtaa aadna moogta goolashii laga dhaliyay meeqay kale haysteen si kasta isu diidsiisa isaa kugu soo dallacaya ilaa wixii moogta filmaan baad daawanaysaa caawo dhan ama maantoo dhan baad filmaan daawanaysaa tiktok baa ku jirta salaada gal adigu beenbeentii huhaadi waxa dhex taallay kugu soo dallacaya soo ma jeedid dee waxa weye waxaad la qoslaysaa wax ka jira ogtiin waxa weeyaan qofku inuu ku dadaalo qalbigiisa in uu ilaahay diintiisa u wanaagsanaado waxa qashinka ee qurunka ah qalbigay kaa wasakhaynaya iminka haddii halka adoo taagan oo marya wacan soo xidhay hadduu qof soo qaado weel uska ku jiro kugu shuba ka war soo ma dhibsanaysidoo kama dagaalamaysid waxaan aad daawanaysee xun waa qashin aad qalbigaaga ku shubayso ogow qashin aad qalbigaaga ku shubayso wey qalbigii qashinkaasi markuu galo cibaadadii buu qasayaa marka cibaadadii buu kaa qasayaa waxa qashinka ah qalbigeenna aan ka ilaalinno waxa inay ku soo dhacaan oo daawanno waana wax la dhegaysto iyo waxa la daawanayo waxaasoo dhan baa qalbiga baabi'inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam axaadiida saxiixada ah waxaa ka mid a xadiidka طبراني soo saaray abi salamata can mucaad radi allahu tacala canhu wuxuu leeyahay qultu yaa rasuula allahi awsinii rasuulka ilaahayo waxaan rasuulka ku idhi ii dardaaran qaala ucbud illaaha kaannaka taraa ilaahay u caabud sidii adigoo arkaya oo kale wacdud nafsaka min almawta naftaada ku tiri xisaabta kuwa dhintay ku dar waad nooshay hadda laakiin waa dhiman doontaa soo ma
سيدا نين اسكو تري سأدد أشد أو حساب تنتid واذكر الله عند كل حجر وشجر إلهي حس dhagax kasta agtiisa iyo geed walba agtiisa macna waxa looga jeedaa hadda safar tahay iyo haddaad joogtid oo magaaladaadii joogtidba mar walba ilaahay xus haddaad ladan tahay oo xaaladdu kuu fiican tahay iyo haddii shida ku haysato ilaahay xus haddaad barwaaqo joogto iyo haddaad abaar joogto haddaad baagamuundo tahay iyo haddaad shaqo haysato haddaad caafimaad qabto iyo haddaad xanuunsan tahay intaba ilaahay xus subxaanahu wa tacaala rasuulku saasuu kula dardaarmaya وفي حديث كما حكوا جب دردارا كنبي معاذ بن الله وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة هداد حما سميسا معاذ حماها دين عيسى وحد سميسا والله ماذا وحو ناكسا السر بالسر والعلانية بالعلانية وحي آد هوس أسميسا حمانا سي هوس أوغا توبت كين وحي دادك هورتيسو أبو أيكو أركيان حمانا آد سميسانا سي موقتا أوغا توبت كين ساس بلي رسولك صلوات الله وسلامه عليه معاذ بن جبل رسولك هو دريا يمن بو مركا دريا يا معاذ waxaa dhici karta gacantu haya marka waxaa dhici karta inaadan ila kulmin madiina markaad ku soo noqoto oo qabrigayga aad soo marto anoo halkaa ku aasan buu nabigu sallallahu alayhi wasallam la dardaarmay Muaad radiyallahu ta'ala anhu arda marka rasuulku aad buu u jeclaa Muaad radiyallahu ta'ala anhu وطولا وانكو تشعلها كتجين صلاة والبدبديدة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دعاء معاذها كتجين مرسولك الله مركا أين صلاة كتشرنو التحيات كمركا دمينو مركا سجود سنهاي مركزتا إلهي أين نراهنو اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وكذا إلهي بريد إلهي وكوغر قاريا سبحانه وتعالى وإلهي وحولي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ذكر أبدا اذكروا الله ذكرا كثيرا في سنة ابن ماجه وحاكسوغا رسولك صلى الله وسلم عليه حنظلة صحابي قال يرى هذا وحيري كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الجنة رسولك اكتسا نتشوغنا مرك قاركود عليه الصلاة والسلام اكتسا كوتشوغان وهانا مرك قاركود فذكرنا الجنة والنار وحان صوهد القادنا شندا يا نار يبالغ الشيكية حتى كأن رأي العين سيدي أنغو إندها كوهينا أوكالي سيدي أنغو إندها كوهينا أوكالي في صحيح الجامع الصغير وحاكسوا عن حديث كمعاذ بن جبل أردت سفر بان دمعين أن آذو فقلت يا رسول الله أوصني مركاثاني رسولك إله يؤيدر دارا رسولك وحر أعبد الله لا تشرك به شيئا إلهي عابد وشركها وصمين واعمل لله كأنك تراه وعمل فلو ألا درتي سيدي إلهي أضو أركي أوكالي سبحانه وتعالى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه حديث ابن عساكر يطبراني وريين شيخ الباني صحيح هذا وكوكيني رسولك أبو الله يا أبي الدرداء اعبد الله كأنك تراه إلهي عابد سيدي أديو أركي أوكالي وعد نفسك من الموتى نفط هذا كو حسابي كو دنتي كو حسابي وإياك ودعوة المظلوم أديغيا وحان إذين كلا ديغيا إسكتشر قفك الدلمية هبار كيسة عدها الدلميني يوكو هبارينه فإنه مجابات دعادي سكاسو إلهي بريو ومثل أجيبيو وعليك بصلاة الغداة وصلاة العشاء صلاة كددال قارهان صبح إي عشاء كددال فاشهدهما كل وضع صلاة حاضر ماشي اللي قلت كنيو فلو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا haddii aad ogtihiin waxa ku jira khayr salaadaha gaar ahaan subaxa iyo cishaha idinkoo gurguuranaya haddaad socod xitaa awoodi kari weydaan ayaad imanaysaan buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam mucaad ibn jabal isagoo wiil yar u dhintay dacuun al-amwaas dhalin yar u ahaa ku dhimanay sanadkii 8 hijri taqriiban markii uu dhimanayay subaxii ka hor salaad subax ka hor buu xanuunka daacuunkaas ku dhacay aad buu u tabcaanay انظروا هل أصبح الصباح دركتي لا تشوق بل فيريا واغ ولي ما بريي قالوا لا بعد ما يولي واغي ما بريين xogaa buu jooga hadana انظروا هل أصبح الصباح warbal eega waagi ma bariya salaad subax ma dhalatay wali maya wali salaad subax ma dhalan markaasuu isoo fariisiyay buu u soo fariist ilaahu waadi og tahay inaan ku soomi jiray maalinta qorraxdu ay kulushahay oo haraadka iyo qorraxdu saytaad og tahay
inaan kuu soomi jiray cabsi aan kaa cabsanaya waad i ogtahay inaan ilaahow salaada faralka ilaalin jiray jamaca masaajidka waad i ogtahay ilaahayow inaan habeenkii qabowga oo jira intaan weysaysto cid i arkaysa aanay jirin aan adiga kuu istaagi jiray salaada salaatulaylka dhaxanta aan qarqarayo oo saa u gariirayo ilaahow waad i ogtahay ilaahow inaan cilmiga iyo culimada iyo khayrka jeclaa oo goobaha lagu hayo aan fadhiisan jiray faa'iidayn jiro ka faa'iidaysan jiray waad ogtahay maanta waad i aragtaa xaalkayga ilaahayow inaan sariir saarnay xaalkaygu culusay waad ii jeedaa allaahumma innii acuudu bika min laylatin sabaaxuhaa ila annaar ilaah waxaan kaa magan gelayaa habeennimada aan waagu salaaddii subax weli la gaarin inaan dhinto kabacdina naar godkayga la ii xareeyo ahlunaar aan noqda ilah kaa magan gelaya wuxuu nin cibaado badan masaajidka loogama soo horrayn jirin salaada subax oo kale rag salafkii ka mida waxay yidhaahdeen waxaanu isnidhi ka soo hormara waxaanu aragnaa isagoo fadhiya salaada marka laga baxo ninkaasoo loo imanayo wax la weydiinayo ilka cadcad war ninkani muxuu ahaa miyaydinaan garanayn mucaad ibnu jabal wey radia allahu tacaala canhu waardaa saasay ahaayeen dad adduunyada micna u arkaynin cibaadada ilaahay macaansanaya subxaanahu wa tacaala xadiidka abi daa'uud nin saxaabada ka mid ah rasuulku intuu duulaan qaaday jihaad u baxay ayaa ay qolo gaala ahba rasuulkii weerareen saxaabadiisii qoladii waa la jebiyey sabyi iyo qafaalna waa laga soo kaxeeyey meeshii qoladuu deganayd ka sokaysaa ciidanku degay rasuulku rabo inuu ka guuro calayhi salaatu wasalaam nin ka mida gaaladii colkii meeshii la galay oo ka maqnaa goobta markaa dagaalku ka dhacay ayaa ka soo dababaxay ciidankii muslimiinta dabeetana goor habeen barhkii ah niskii dambe oo saxaabadii maxaanku idhaha ay degeen meel oo waardiyihii la qabtay oo laba nini waardiyihii ku qorantay ninna markaa uu waardiyihii saaran yahay ninna uu hurdo ayaa kii waardiyaha saarnaa salaatuleyl xidhay kii gaalkaa waa soo dhuuntay fallaadh buu ku dhuftay dhag ninkiioo salaaddii ku jira salaaddii buu ku jiraa salaaddii fallaadhii ku dhacday macaanka cibaadada ilaahay uu hor taagan yahay fallaadha ku dhacday salaadda uu ku jiriya qur-aanka uga sii macaanaaday mid kaluu ku dhuftay haddana mid kaluu ku dhuftay dhiiggii jidhkiisa ka daatay baa saxaabigii agtiisa hurday qoyaankiisii dhiiggii uu gaaray markaasuu toosay ninkanoo taagan yaqra'u alqur'aan yusallii qiyaamuleyl buu tukanayaa dhiigguna waa ka daadanayaa 3 fallaaroodna waa ku dhacday wuu taagan yahay ma ujeeddaa maxaad ii kicin weyde markaasuu yidhi aayad baan marayey oo salaadda aan ku jiray aayadda macaankeeda inaan kala gooyaan diidayay dad waxay ahaayeen dareemaya ilaahay subxaanahu wa tacaala inay hor taagan yihiin sida rabbigood inay arkayaan oo kale alla u caabudaya subxaanahu wa tacaala rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas waa xadiid saxiix ah oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi uu saxaabiga la dardaarmayo alxaafid ibnu xajar raximah allahu tacaala fatxulbaariga wuxuu leeyahay salaadaha cishaha iyo fajarka waxaa rasuulku si gaara ugu tilmaamaya waxaa ku jira 2 qodob oo qofka jeclaysiinaya inaanu xaadirin baa ku jira qodobka koowaadi waxa weeye buu yidhi maalintii oo dhan baa la ordayaayo cishaha qofku waa xilli uu rabo inuu iska nasto oo meeshii uu fadhiisto aanu ka kicin oo iska seexdo uu rabo salaada subaxna hurdadaa macaan xilligaas hurdada ayaa xilligaa macaan waxaa ka mid ah axaadiista yaabka leh ee rasuulku mucaad ibnu jabal رضي الله تعالى عنه في صحيح الترغيب والترهيب الإمام المنذري وكوكينيو حديث عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص سفر بان دونين أن آدم يري معاذ ورواية حديث يا رسول الله أوصني يدر دار رسولك إلهيو رسولكم محوكو قال اعبد الله إلهي عابد ولا تشرك به شيئا شرك الله أوصمين قال يا رسول الله زدني إلهي رسولك زيادة دردارك إي قدر قال إذا أسأت فأحسن markaad xumaan samayso wanaagna samee walyaxsun khuluquka akhlaaqdaadu ha wanaagsanaato iyo dhaqankaagu ha wanaagsanaado rasuulku leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh riwaayadka xadiidka waxaa ka mid a riwaayadda imaam targhiib watarhiibka mundiri ku keenayo ee darajadeedu xasanka tahay ayaa wuxuu leeyahy yaa rasuula allahi awsini waa riwaayadka xadiidka mucaad ii dardaaran qaala ucbud illaaha kaannaka taraah إلهي عابد سيدا أدو أركا يوكل واعدد نفسك في الموتى نفتا ذا كو حسابي أو كتري كوة دنتي وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله هذا دون توحن كو شيغيا انت عن كو شيغي ميت كم مضان إنات
إلى لسو حفظه محانكو إلى هذا كهول بدن بان كوشيغيا هذا عرب كاغن أقو وأشار بيده إلى لسانه عرب كاغا كاتكو عرب كاغا كاتكو سمعنا وعي ترى اسمه هذا إسلام لاي قف با إسقو قف كستوح كشيغي وما جاي حبو كشيغي كم واكن إسقى سماها عيب كسلين حبا ما لها ومدنا أفكاسو كبابئي سيدا أوجد مسلم كي والله قيبوضو وقف مسلم إلا رسولكم مركول المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه مسلم كدبتي وقف كأفكي سيادين كي سمدو كنبت قلال مدبات شيرا مسلمة ومسلمين تي كمدة وعبادي سنية ومحانكو إلى هذا أفكي ساس قف بني آدم وحبا ميلي لكن قعنتو بلايك قبا دلك فيرك وشا دعا بلايذا قعنتها سمد كوكا قسي من قعنتو وحبا كما سمينا يئه أفكو كفلين نار أفوف والنار أفوف أفكا هدو كلا قاضو إنكارها كسو بحية بلين كريميسي حنتا وحسكو دلك بلايذا مساج كان سفكر وكتشرها هدو صوبحنا إذا عجزوا الشيطانية أنت نزل أوتها أن أمضى صوت صوت قبنا النتوج جوده ما كسمين دول بمحنكو إلى هذا تعليق كسي دينية كان ساسوي كان عين كان وي مركب قف كاسي بسجى أقمشه قدام بينه عبادة إلهي كربه وكم مشغول وكم مشغول رسولك عليه الصلاة والسلام وحكم إذا أحاديثته ومعاد روايات كيسان صوروريي يا رسول الله أوصني يقدر دان رسولك إلهي قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا ألا عابد وشركها وسمين وأقم الصلاة صلاة أوك وآتي الزكاة زكاة به وصم رمضان تصون وحج البيت بيتك حجي واعتمر عمريسو واسمع وأطع مقل أتلذي سقاضو منك كحكم أميرك وعليك بالعلانية وإياك والسر وحي كاغا موقدا ددك ظاهر كودا كلا معامل لكن ددك وحا قلبي كودا كجيره ما اوغيده تهمك يا وسواسك يا ظنك اسكا الالي تهمك يا وسواسك يا ظنك اسكا الالي حديث كاس عبد الله بن عمر باصوص باوريي الشيخ الباني وحول درجتي سوا حسن سلسلته كوكينيه سلسله الحديث الصحيحه اي حديث كاس كوكينيه سيدا اوغيد وحين والله لا يالو باهنahay qofka muslimka ah inuu rabbigi u caabudo sidii isagoo arkaya oo kale ninka la yiraahdo saxaabiga ah Abdullah ibn Umar oo tawaafaya Kaabada ayaa tawaafkii waxay ku kulmeen sida Abu Nu'aym al-Asbahani Hilyatul Awliya ku keenayo waxay ku kulmeen tawaafkii Urwa iyagoo tawaafkii ku jira ayuu wuxuu ku yiri Urwa Abdullah ibn Umar gabadhaada inaa isiisaan rabaa gabadhaada إنا إسيسان هذا لم يجبه بشيء وحبأه ما جواب ثم رآه بعد ذلك كدي مرضا بو أركي وضواف كيسي وحي سيدا ما يستي يا مساج كدي بدس الله يسكو أركي فاعتذر إليه وأعذر دارت إقرأ ليه هو مركي دويد أدي لها اللي يسين كو جوابي وكو مقلي كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا طواف كانوا كتشرني waxaanu dareemaynay ilaahay inuu na hor taagan yahay subhanahu wa ta'ala saasa marka waxaad ka hadlaysaan ka jawaabo aanan u jeedin tawaafkaasan ku jiray marka ilaahay inuu i hor taagan yahay ba ii muuqanaysay on dareenkaasaan watay iminkay wixii ka dambeeyay baan kaaga jawaabaya wuxuu jiray ibn al-qayyim rahimahullah kutubtiisa qalbiga la hadashay inta badan fawaa'id iyo miftah dar as-sa'ada iyo dar as-salikin ka iyo man ta'ammala hawla al-ahwal as-sahaba قفك أفير سدبير صحابة حالذهودي رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف وحقفك هلا يا يوغانيا إن أي عمل فشان ماشي قدام بيسي أودو ده يددال ماشي قدام بين عمل فلانشرين يقو عبسيده قدام بيسي بني آدم وعبصده إلهي كعبصني سبحانه وتعالى ونحن جمعنا بين التقصير أننا وحنا كل منا مركان عبادة سنينو بين التفريط والأمن بوير إن أنو عبادة إن لكر بين قابس كنا هاي يقبو طفل حدنا أنو آمن إسكا قبنو سيدا إن وحش دبا آني تشيرين إن آمن قبنو كلام إمام أحمد رحمه الله وحورنا يا سعيد بن يزيد الأزدي أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوصني إدر دار
أوصيك أن تستحي من الله وحنكو دردار ما يا إله إنك كحشوت عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح من قومك صادق حشوته نوانا أكسن أو قوم كاغا كميدا هذا نين أديك يقانا وقرابة هذا كميدا وإخيار أكتي سمركها شوكت سو إسئلالين ميسيد هذا بقراتك أكتي سمركها شوكت إسئلالي سوينات قراتك كمان من إلهي إسئلالي سبحانه وتعالى هرتيس marka sida aad isu ilaalinayso uga xishoonayso nin qoomkaaga kamido wanaagsan agtiisa inaadan wax xumaana ku samayn ilaahay agti xumaana ku samayn subhanahu wa ta'ala النبي صلى الله عليه وسلم عليه ساسو saxaabada ula dardaarmay iyo cibaadada iyo sameynteeda qofku marka waa inuu horta ku talagala inuu diyaar garoobo maanta waa joogtaa laakiin bari ma joogtid rabbiga cibaadadiisa aad caabudayso ikhlaas iyo daacadnimo يا عمل فلاشو وناكسن يا رسولك أتكقى ضيانيس عليه الصلاة والسلام إنك قوبها عبادة وينو كيرنا إنت بدن حلقة صلاة دينو صوقلنا طبيتنا وينو كيعنا مركيبا اللهم استعان هدي مرمر ندوة شرتو أمام محاضرة شرتو وادعي كرتادت كقارني فريستان وكل رياغان لكن إنك وحينو قبضن قوبها وحينو فريستنا فديكو درك يا شيء كذا يا وحاسا كبضن وقت جينا إنا نكبحنو رسولكنا عليه الصلاة والسلام هدي حتى ومال فريستو وصحابته الشيكيسان يانو اسكا الشيكيسان مركا قاركو دقالدي هوري اما جاهليدي هوري وحي ديعي جيريو شيكو دا عدون كودا كشيكيسان يان مكا احاديث قاركو دا ادفيريسيد وحويا وحبادن باكاغا صوبحي إنك سي عبادتنا إلهي إن عابدنا سيد إنك أركينو كلا وحيابها إنو ديدي وحكمدا باقمون ضني ماذا شقل أنت بدن يشرته شقوين بدن وشراء لكن قفك وديدي إنه كشقي وسكلوين يا هيبا وديدي يا شرته شريعتنا يبنانت إنه كشقي هذا البنان كمدا هذا البدن قفك مركو يماد الصومالي غير سوفريستو وحو إسليه هي من كان ما هضلو وهذا اليري هو نعس الوير هذا هذا هم يبان واحد دون تشيك ثم هذا قال روح يترونها شيء بينها شيء واحد شيكتنها واين ونوع واليه موقته marka qofku inuu wuxuu inuu sheega rabo oo hadlo soo ma jeedid in qofku saacado badan fadhiyo oo fadhi ku dir kulligeen muxal siyaasi abaan siyaasiyiin bay wadanay kulligeen siyaasiyiin bay nahay muxallin siyaasi la wax la taxliilinaya siyaasadkii baa laga wadaranaya shu'uuntii qabaa'ilka oo dhan baa in xushan laba reer haday wada dagaalamaan kulligeen waa wada dagaalsanay wixii labada qabiil ka soo jeeday meel kasta ha joogeen reer quraac reer qansax baa dagaalamay reer quraac reer qansax wixii ka soo jeedan waa dagaalsan وعلى كل لحلحانية ضد قبائل كي يدقال كود يقشن كود دباتوين كوهينا وين النهي خطر بدن وهنتي أمضها أن نلو ذاقين باين هايستا تاسا وحي كيني ساتشويش كافرها بدن إن عبادتي الصحة هايد إلا نكربي أين كقابن ماشي للربي وين عبادتي كدك دقنو كعررنو سيلا هاي وح بدن إنو كيري سبحانه وتعالى عبد الله بن عمر وحوليه حديثك صحيح أبو داود أي صوصان غير كود إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم وحانو أهين رسولك مركانو ميل الله فريسانو وحانو أتيرين شرني هل ميل مركانو الله فريسانو بقول شير أنه اسكا شيكي سنين أنه أيو بقول شير أفكي سكتيرين شرني إساقوله رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم إلهي يدن بداف ويقى توبة أقبل أحد توبة أقبله ونحريس بدن بعد بقول شيربان كتيرين شرني بولي كأنه إن هدينو فردي يدا بدينا إنه عبادتي كمشغولة إنه ذكري إنه بطوه وشيئات مهمة صحابي قال لي العرس بن عميرة الكندي رضي الله عنه أيا وحى رسولك وكورنا يا رسولك ويريبوا صلوات الله وسلام عليه وحديث كان إنك كصومالي أهان داوود وين بقى إنه وجرت يدا مسلم كورنا حديث كان فعي لكن مجتمع الصومالي قد دواب بدن بقى وجرت ضد كان قبائل كإسولينيا مشاكل كيف النضب بدني كتشرته حديث كان بالفير رسولك عليه صلوات الله وسلام عليه إذا عملت الخطيئة في الأرض هدي خلط يدنب يقف للك يا أرلذا ملك إذا لغصة مايو كان من شهدها فكرهها قفك ميشا تشوغه حماها الله صمين يو نعه وأن يسقوا رالك أهين وفي رواية أنكرها وإنكروا ديده
كمن غاب عنها مد كم قن أو كل لمدي ماشي أشوفها وحى لغو سمينيا ذلك متي مؤقلي وديد انتهي إلهي أكتي سنيدا ذا وناكسن وحقوق ريا قف كم قنوك ومن غاب عنها قفك ماشي وحاسي حمو كدا عيان شوغا كم قن فرضيها هدنا رالي كأ وما هاسئين ضعه كان كمن شهدها وحلمي ذا سيدا قف شوغا أوكل إنه وحيابها حمها معاصدا أما ديغا سوكيه يا مسلمين تدحدوا دغالميسو ديغودو دادينيا قفكو هدي او كفرحو هبا كم مقناده قف جوغو او كل لميدي قف جوغو او كله ايو لميدي سيدا اوغيد waxaa la inaad is ilaalisid hadaad ilaahay uu ku arko adoo is ilaalinaya uu ku ilaalinaya hadii ilaahay uu ku arko niyadaada dhaqankaaga adoo cibaadadii ku dadaalaya dadaalka cibaadadu ku gelinaya haduu alle ku arko adiga oo si fiican oo dhamaystiran cibaadadiisi u gudanaya si fiican oo dhamaystiran buu kugu hanuuninayaa inaad cibaadadii u gudato haduu ilaahay ku arko markaad is hortaagto caabudayso sidii adigoo arkaya oo kale inaad jeceshay rabbi inaad u caabudid saasuu ilaahay kaaga dhigaya subxaanahu wa tacaala wixii ilaahay aad ka malaysato ayuu ilaahay kuu noqonayaa subxaanahu wa tacaala marka waxaan naftayda iyo tiinama u dardaarmayaa habeenno kooban baynu walaalayaal adduunka joogaynaa marti baynu ku nahay adduunkan in badan oo aynu ehel iyo islaan ahaaba oo naqaani waa dhinteen waa dhimanaysaa adna waxa wax ku taraya waa cibaadada ilaahay aad caabudayso qof walba cibaadadaada aniga idin la hadlaya idinkaba hoos ha u eego cibaadadiisa qof walba cibaadadiisa ha saxo ha ku dadaalo waxa ku gabagabeenaya xadiidka rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi salaada mithlka uu ku bixiyey xadiiska cajabta leh ina alcabda إذا قام يصلي قفك مركا أو كعو إسقو تكني صلاة فرل أما سنة من دون أو كعو أو كعي صلاة بحد وأسوتال إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه ذنوب تيسي أو قلي أو دنب إلهي كينيا سبحانه وتعالى فوضع على عاتقيه مركز وحا الله صار يا هلكا دكت الله صار عاتق وحل إرادة ما بين العنق والمنكب وانت قربك يسرك ودحيس هل كاس الله صاريا فكلما ركع او سجد تساقطت عنه مركز او ركوعه اما او سجوده او ركوع في عن او ركوعه وان بوبسيسي ددجين اهين سجود في عن او سجوده وان بوبسيسي ددجين اهين ذنوبتي سوا كسو دادانيسا النبي عليه الصلاه والسلام أصبح تسنى سفي عنه حسلوني العبادة لو تكذو إلهي دنبقيني كي والد كي مهداف وأعماشنا الله قاتشيو عبادنا الله توسيو اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك